بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدين والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardayga kusoo dhawaada kulliyadda caafimaadka Rift Valley Medical College. Course-ka waa course-keeni epidemiology-ga and biostaticska. Waxaan ku dhex jirnay chapter 8 oo ka hadlayay methods of data collection, organization and presentation. Qaybta hore waxaan kusoo qaadanay methods of data collection iyo sida questionnaire loo sameeyo. qaybtana waxaan ku qaadan doonaa organization-ka iyo presentation-ka datada. waxay noqonaysaa lesson number 8 part 2 ama qaybtiisii labaad oo ka hadlaysa marka organization-ka iyo presentation-ka. marka halkan waa methods of data organization and presentation. markan waxaan kasoo hadalnay habka iyo hanaanka loo ururiyo xogta. iminkana waxaynu kaga hadli doonaa qaabka xogta loo habaynayo, organization-ka loogu sameynayo, loo kooxeynayo and presentation iyo qaabka loo soo bandhigayo. markastaba xog kasta ama data kastoo lasoo ururiyo si ay micno ballaaran u sameyso waa in la habeeyaa, la kooxeeyaa, kadibna lasoo bandhigaa. marka waxyaabaha organization-ka iyo presentation-ka xogta lagu sameeyo waxa weeye xogta ama in shax la geliyo, sawiro in lagu muujiyo, tables in la geliyo, graphs in lagu muujiyo. waxyaabahaas oo dhan micno ay u sameynayaan xogtii in organization lagu sameeyo, muxuu ahayey ama in lasoo bandhigo. marka soo bandhigidda waxaa ka horeeya in organization marka la organization lagu sameeyo ee xogta soo bandhigi kartaa. marka collect data xogta lasoo ururiyay need waxay u baahan tahay to be organized in la habeeyo in such a way to condense si marka ay noqoto mid condense the information si xogta la isugu soo ururiyo ama loo kooxeeyo ama fac la iskaga dhigo ama loo gurubeeyo. they contain to condense the information they contain si gudaha lasoo geliyo xogta ay ka kooban yihiin ama lasoo kooxeeyo loo ableeyo in a way hab that will show kuwaasoo ku tusi doona patterns hanaanka of variation kala duwanaanshaha clearly si cadaan ah. marka xogtii marka ay raw data tahay ama xog aan bislayn weli isku dhex daadan tahay xataa information-ka ay ku siinayso micnaha iyo sharaxaadda ay ku siinaysa wuxuu noqonayaa mid hooseeya ama liita. laakiin markastoo xogta la organize gareeyo, la guruubeeyo, la kooxeeyo, information-ka iyo xogta ay ku siinaysa waxay noqonaysaa mid micno sameynaysa, waxay noqonaysaa mid ku kalsoonaan mid aad fahmaysa ay noqonaysaa. haddaba different techniques noocyada kala duwan of data organization marka datada iyo xogta lasoo bandhigayo waxaan ujeedaa xogta marka la kooxeynayo and presentation iyo lasoo bandhiga like sida ordered array. ordered array waxa weeye in wixii la nidaamiyo order hab nidaam loo dhigo. marka inta badan marka tableska iyo waxyaabaha la gelinayo ayuu ordered arraygan uu ka yara duwan yahay si qaab table u dhacaa. marka nidaamkii table uu marayay distribution-kii kala duwanaanshihii waxyaabihii lagu kala duwayay marka table kala gelinayay score-ka lahaa, frequency-ga lahaa, cumulative frequency-ga lahaa, waxyaabihiiba aanu ku caddeyn ama aanu lahayn ordered array. markaas la ordered array sidoo kale waxaa lagu muujin karaa in tables baa lagu muujin karaa oo ah shax in la geliyo. waxaa lagu muujin karaa diagrams, sawiraa la isticmaali karaa, waxaa la isticmaali karaa graphs iyagu meesha imkaan noogu qornayn. waxyaabahaas oo dhan baa la isticmaali karaa. oo waxyaabaha lagu soo bandhigayo xogtii marka hore aad soo urursatay ee aad kaydisay waxyaabaha lagu soo bandhigayo ayuu noqonaya. waxaan ku horeynaynaa frequency distribution-ka wax la yidhahdo oo cashirkeena inta badan xooga u saarayo. frequency distribution-ku waxa weeye waxyaabihii meesha yaalay xogtii ama datadii ama raw datadii aad soo ururisay scoreradii meesha ku yaalay inaad kala habayso, kala haadiso, shax iyo table geliso ama graph ku sameyso. marka waad faafinaysaa ama waad fidinaysaa xogtii, kala saaraysaa. markaad kala saarto waxa laga yaabaa xog kasta ama inkastoo islaba dhinac inay isu marto. inkastoo isla dhinac isu martana
waxa kusoo baxaya inaad ogaato scorekaasi ama tiradaasi imse jeer bay soo noqoto ama falkaa imse jeer baa la sameeyey ama sheekada ama hawsha imse qof baa qabtay waxyaabahaas ku ogaanaysa marka tusaale imtixaan oo kale aad doonaysa ardayda imtixaan baad ka qaaday maadadan aan dhigano kale ardayba imtixaanka waxbuu keenaya laakiin waxaa laga yaabaa ardayda qaar kamid inay isku wax keenaan falan 10 arday baa imtixaan laga qaaday ama 20 arday baa imtixaan laga qaaday 20ka arday imtixaanka laga qaaday imtixaanka 30 baa lagu bixinayay laba arday kamid ah 30 way keeneen 3 kamid 27 bay keeneen mid 28 buu keenay 5 kamid 20 bay keeneen saa markaad u qorto deedna 5 labaatanaad aad qorto laba soddonaad aad qorto laba 27 aad qorto mid 28 aad qorto mid 15 keenaad qorto saa u qorto daadsiiso row data qofka hadhowto frequency distribution ku sameynaya waxyaabahan buu isku habeynaya wuxuu soo saaraya un odhanaya imse qof baa 30 imse keenay frequency wuxuu noqonayaa 2 scorekii waa 30 frequency-gii waa 2 tusaale ahaan 20 imse keenay 5 baa keenay 27 imse keenay 2 28 mid baa keenay 15 keenay mid baa keenay qaabkaas uu habeynaya hadda waxa lagu yiri for that xogta to be more easily appreciated si siro fudud loogu fahmo and to draw quick comparisons loona sawiro isbarbardhig degdega it's often useful inta badan waa muhiim to arrange in la habeeyo data habka in the form of a table in table lagu habeeyo or in one of a number of different graphical forms or one of ama waa in lagu sameeyo mid kamid ah number of different graphical forms hababka ama qaababka graphics ee kala duwan in lagu muujiyo ama bar graph ku muuji ama pie chart ku muuji ama histogramkii ku muuji ama frequency polygon ku muuji noocyada kala duwan graphics isticmaasho iminka halkan tusaale inoo yaala waa study cilmi baaris lagu sameeyey 400 oo qof 400 oo qof waxaa la weydiiyey imisa filin ah oo full-length movies ah ayay daawadeen television ka daawadeen wiigii tegey deedna dadkaa warwareysta imisa filim baa daawatay qof wuxuu odhanaya waxamaan daawato qaar waxay odhan waxamaanaan daawan qaar filim baanu daawanay qaar 5 filim baanu daawanay qaar 10 filim baan qaarba waxay ku odhanayaan marka xogtii markuu soo ururiyey qofkii uu wareysto tusaale ahaan in la yidhaha cabdi weydiiyey maxaa daawatay 5 baan daawaday buu qoraya cabdi qofkii koowaad 5 buu daawaday qof kale saasaa loo wadaya hadhow waa row datadii waxaad doonaysaa inaad zero habaysan dadku fahmayaan oo soo dhigto marka qofkii xogtan qaaday studygan qaaday 400 ee qof ka qaaday hebelkana uu kusoo ururiyey organization buu ku sameeyey the following gives waxay kusan the distribution of data collected xogtii lasoo ururiyey distributionkeeda ama qaabkii loo arrange gariyey loo habeeyey waa number of movies xagna waa tirada filmaanta 0 waxay ka dhiganta waxamaan daawan 1 baan daawaday 2 baan daawaday 3 filim baan daawaday 4 filim 5 filim 6 filim 7 8 filim saasay u socoto marka waxaan ugu waa number of persons xagna waa percentage marka xagga number of persons wuxuu noqonayaa frequency tusaale ahaan yaan filim ma daawan 27 qof ayidhi filim maanaan daawan imise qof baa yidhi hal filim baanu daawanay 106 qof baa yidhi imise qof baa yidhi 2 filim baanu daawanay 153 qof imise qof baa yidhi 3 filim baan daawanay 40 qof imise qof baa yidhi 4 filim baan daawanay 18 qof imise qof baa yidhi 5 baan daawanay 7 imise yidhi 6 baan daawanay 3 imise yidhi 7 baan daawanay waxid baa ayadoo mi odhan 7 filim baan daawanay waayahay imise qof baa yidhi 8 baan daawaday hal qof baa yidhi 8 filim baan daawaday marka intaa la sameeyo frequency halka yaala waxa loo bedelayaa frequency percentage ama relative frequency wax la yaqaano ayaa loo bedelaya see loogu bedelayaa percentage waxa loogu bedelayaa waxaad soo qaadanaysaa tirada meesha taala tusaale ahaan waa 72 qof totalka guudna waa imisa ee qof laga qaaday studyga waa 400 72 qof 400 maxay ka noqonayaan percentage ka soo ogaato waxaad ku dhufataa markaa 100% aad ku dhufanaysaa marka 100% ku dhufato calculatorkaagana aad isticmaasho marka waxa kusoo bixi doona 18 oo de labada 0 iyo labada 0 isla baxayaan
waxay ka dhigantay markaa xaggan u qaybi haddaan u qaybino 4 waa 1 xaggan haddaan 4 ugu siito haddaan idin fududeeyana halkan 2 u qaybi waa 2 xaggana 2 u qaybi waa 36 haddaan halkan 2 usii qaybi waa mid xaggana 2 usii qaybi waa 8 sababta maxaa kasoo baxaya marka waxaa kasoo baxaya 18% waa dad percentage u bedelayso saa haddaad ku wado marka kana saa select 26.5% intan hadhow marka isu geyso percentage waa inuu 100% noqdaan isu geyntooda marka qaabkaas aad xisaabinaysaa frequency marka qaabkan loo arrange garanaya 400 qof qaabkaas loo habeeyay haddaba waxa lagu yiri wuxuu sharaxaya table-ka hore in the above distribution-kan ama arranging aan sameynay xagga sare table-ka ku yaala number of moves percentage waxay tahay variable-kii bay tahay and the consideration inuu u tixgelinayna in variable ahaan number of moves waxay taageen variable number of persons waxay taageen the frequency way taageen wanigi markaan dhiri frequency way taageen frequency waa kan waa ka dhexe kana muxuu variable-ki waayahay frequency and the whole distribution kor marka isku daro waxa la yaqaanaa frequency distribution particularly kan waxa la dhahaa simple frequency distribution baa la dhahdaa waxa jira wax loo yaqaano isaguna categorical distribution ku se inta badan waa information markuu non numerical imaka kan imkaan soo qaadanay numerical buu ahaa quantitative ama laakiin markuu qualitative yahay non numerical markuu yahay qaabkiisa loo soo bandhigay isagana wax loo soo bandhigay qaabkan arki doono marka non numerical information can also be presented in a frequency distribution ka ayaa lagu soo bandhigi karaa inkana wuxuu sheegayaa in arday school dhigta oo senior ah fasalkii ugu dambeeyay secondary ku jira in laga wareystay plan-kooda iyo qorshahooda markay dugsiga sare dhameeyeen kadib marka seniors of high school were interviewed ayaa laga wareystay on their plan qorshahooda after completing the high school marka datadan ayaa laga soo wariyay 548 arday marka kuwan waa seniors plan waa qof sabab qorshe hawlaha halkan waa number of seniors tiradoodii marka waxa la eegayaa qof kastaaba inta marka waa non numerical waatan xaggan waxa lagu qoray xaggii variable laguma qoray kan xaggii frequency ga lagu qoray frequency marba tiruu noqonaya laakiin qaybtii kale non categorialkii muxuu noqday waxa caadi marka seniorskii imis qof yidhi waxaan doonayaa inaan college galno plan to attend college 240 qof ayaa yidhi waxaan doonayaa in college galno ma attend college imisa ayaa ku biiri kara college 140 ku biiri kara sidoo kale doonta inay qorsheeyaan iyo inay ku biiri karaan qorshaha iyo ku biiritaanka toos ku kala duwan waayahay imsa yidhi waanu qorsheynaynaa ama waanu ku biiri karnaa vocational schooladan vocational farsamada gacanta iyo waxyaabaha lagu barto 7 arday imsa arday baa yidhi school iyo ama vocational ahaada ama college ahaada meel 105 baa yidhi totalka waa 508 qaabkaas loo categorization baa lagu sameeyay waana non numerical waa category